بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waa Sky News TV hadaba daawadeel kulmada waxaan ku soo qaadan doonaa loolanka adag ee ka dhaxeeya gudaha xisbiga kulmiye kaasoo shirkiisii afraad la qabanqaabanaya haddaba waxaa loo tartamayaa cidii hogaamin lahayd xisbiga kulmiye sanadadan soo socda haddaba shuruudaha lagu xidhay ayaa waxaa ka mid ahaa lacag iyo waxyaabo kale si uu qofku u noqdo musharaxa ama se hogaamiyaha xisbiga kulmiye haddaba say wararku sheegayaan hadda waxaan halkan igu soo gudbi doonaa asxaab musharaxiinta waqtigan xaadirka buuxiyey shuruudaha looga baahnaa waxaana ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo shubay lacag dhan 128 milyan oo shilinka somaliland lacagtan oo ka mid ahay shuruudaha lagu xidhayo qofka noqonaya hogaamiyaha xisbiga kulmiye sidoo kale waxaa isna shubay wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin kaasoo shubay lacag dhan waxaana uu shubay wasiirku lacag dhan 68 milyan oo shilinka somaliland ah taasoo ahayd shuruudaha looga baahan yahay inuu buuxiyo qofka u tartamaya jagada gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye sidoo kale waxaa iyaguna sidaasi la mid ah buuxiyey shuruudaha musharaxiinta ay ka mid yihiin axmed cabdi dheere maxamuud sacad saajin iyo sidoo kale wasiirka ganacsiga xuseen aadan cadde oo ah gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye isaguna mar kale ayuu u soo sharaxayaa haddaba dhammaantood mas-uuliyiintan ayaa waxa ay shubeen lacagtii lagu xidhay shuruudaha musharaxa looga baahan yahay ee u tartamaya xisbiga ama noqonaya hogaanka xisbiga kulmiye sidoo kale waxaa la sheegayaa inuusan weli shubin madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan saylici haddaba daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenan caawa waxaan kusoo qaadanay hirdanka iyo tartanka ka dhexeeya gudaha xisbiga kulmiye taas oo mas-uuliyiinta u tartamaya gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenada ay qaarkood haatan buuxiyeen shuruudaha looga baahnaa oo uu kow ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda somaliland maxamed kaahin iyo mudanayaal kale kuwaas oo iyaguna u tartamaya gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo ka saddexaad haddaba daawadayaal wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakatu